laakiin marka adiga oo weyn aad jacayl uu ku galo sida aniga oo kale hadeertaan aan kula hadlayo aniga caashiq baan ahay oo caashiq waa idalay waa kasii dhadhal iyo qoto dheer yahay marka aad dhalinyarada tahay. waayahay Batuulo mar kale kusoo dhawow barnaamijka. waxaan rabaa in aad nala wadaagto horta aragtida aad ka haysato. Soomaalida aad uga leexleexataa kelmadan, qaarkood way ceebaystaan oo ceeb laga yaabaa inay u arkaan, laakiin kelmadda amaba waxaa la yidhaahda jacaylka maxaa ka aaminsan tahay? jacaylka waa qayb ka mid ah noloshayda ama waaba inta badan noloshayda. waa waxaan aad iyo aad u qiimeeyo oo aan ku qiimeeyo doorka uu kaga jiro bini aadamka iyo jacayl la-aantiis inay nololaba jiri karin, hadday jirtana ay tahay nolol ciriiri ah. jacaylku waa fara badan yahay. jacaylka waalidkaa jira, jacaylka caruurtaadaa jira, jacaylka waxaa jira ilaahay kuuga sanadiidee ummadaada aada jeceshahay, jacaylka diintaada, jacaylka horumarka iyo ilaah mahadda iska leh wax soo saarka. jacaylku waa fara badan yahay oo wax badan oo maaragtay macno ah ayuu nolosha bini aadamka ku leeyahay. uuna waxa ugu qiimaha badan oo bini aadamku ay inta ay nool yihiin ku xiiseeyaan jiritaankooda ayaan aaminsanahay inuu yahay jacayl. waxaad ka warantaa midka dhex mara amaba u dhexeeya labada qof, wiilka iyo gabadha, jacaylka labadaas qof u dhexeeya maxaa ka aaminsan tahay? waxaan ka aaminsanahay sidiisaba jacaylka ayaa bini aadamka is afgarabsiiya, iska helitaanka iyo wadahadalka. inta aan jacaylku bilaabanin waxaa soo jiidanaya qofka aragtidiisa, qalbiga iyo maskaxda. kadibna waxaa bilaabanaysa wadahadal ayaa bilaabanaya. qof walbana intuu nool yahay waxaa u suuraysan jacaylkiisu sida uu noqon doono. anigu intaan dhalinyarada ahaa jacaylkayga siduu iigu qorshaysnaa, laakiin inta badan qorshaha adiga aada samaysato wuxuu u badan yahay wax hawo ah oo aan realitiga aan qayb ku lahayn. waxaana wanaagsan qofka jacaylka aada u qaadayso inaad barato oo aad ku qiimeyso barashadaas iyo wixii aad kala kulanta. aad iyo aad marka waxyaabaha adiga muhiimadda kuu lahaa 1 iyo 2 iyo 3 ee qofka aad ku qiimeynaysay, haddii uu soo buuxiyo shuruudahaas adiga maskax ahaan kuu yaalla ama noloshaada aad jeclaan lahayd in uu lahaado qofkaasi aad ku qiimeynaysay, maxaa ka mid ah? waxaa ka mid a marka ugu horeysa qofku wuxuu ku dhex nool yahay mujtamaca, wuxuu leeyahay waalid, wuxuu leeyahay walaalo, wuxuu leeyahay saaxiibo. inuu yahay qof horta marka ugu horeysa qiimo ku leh, asagana ay qiimo u sameynayso dadkaas ay maaragtay noloshiisa ku xiran tahay. kadib qaabka adiga uu kula tacaamilo iyo qaabka uu kuu soo dhaweeyo iyo sida uu maaragtay kuugu muujiyo aragtidiisa iyo fikirka adiga uu kaa qabo, iyadana door ayay ka qaadanaysaa. ama ha ku muujiyo suugaan, ama ha ku muujiyo hadal caadi ah, ama ha ku muujiyo hadiyad iyo farxad uu ku geliyo oo uu maaragtay kugu soo jiidanayo oo uu rabo inuu ku dareensiiyo jacaylkiisu sida uu yahay. marka runtii aniga waxyaalaha aan qofka ku qiimeeyo markaan dhalinyarada ahaa iyo hadda xataa laftigeeda dhalinyarada gabowdaan ahay, weli qalbigeyda iyo niyadeyda jacaylka aad bay u xiiseeyaan oo ma ihi qof nolosha gabtay. waana jecelahay maaragtay in las jeclaado oo dadku ay jacayl nolosha ku qaybsadaan, isku guursadaan, ubad ku wada dhalaan, ku wada noolaadaan. qorshaha maaragtay marka aada dhalinyar tahay aada jacaylka ka aaminsan tahay iyo marka aada weynaatana waa kala duwan tahay. markaad dhalinyar tahay waxaad hawaad ku socotaa, qorsho waxaa kuu qorshaysan kale. laakiin marka aada weyn nolosha dhex gasho oo practical aad qofka maaragtay isku dhex gashaan ood isguursataan, waxaa kuu abuurmaya jacaylkii hore kasii qoto dheer oo aad ku qiimeynayso qofkaa nolosha aada la wadaagtay iyo quuritaanka noloshiisa adiga uu kugu xiray iyo sida uu ku arkaayo iyo sida aada u cajirinayso oo aada u tahay agtiisa qof qiimo weyn ku leh oo aragtidiisa iyo fikirkiisa iyo dareenkiisa uu kugu muujinayo. marka jacaylka waa wax maaragtay aan aaminsanahay. hadalkaagii hore Batuulo ku jirtay in jacaylka uu noloshaada ka mid yahay, bal haddaad si yara faahfaahisid qaybtaas. anigu waxaan maaragtay practically usoo maray noloshaydaba jacayl run ah ayaan practically usoo maray. dadkii ilaahay subxaana watacaala aan ku kulannay nolosha ama aan isku baranay ama aan wadaagnay oo aan dhaqan iyo guur iskugu yimiday,
runtii dad aada u qiimo badan oo jacaylkooda uu aada maaragtay igu weyn yahay ayay ahayd. saasaana maaragtay ugu raaxaysanayay ama u fikirayay marka aada la nooshahay qof aada jeceshahay ama asagoo ku jecel inay ka duwan tahay marka aad maaragtay qof aan ku fahmaynin aada noloshaba qaybsanayso. marka jacaylka waxaan aaminsanahay inuu waxaa furaha u ah bini aadamka inay isku fahmaan, iskaga soo dhawaadaan dadka intiisa kaleetood. taliyaha ciidamada asluubta mahad, generaal mahad, wuxuu sheegay jacaylka marka dadku ay dhalin yar yihiin inkaasi uu iska yahay mid hawadaas uun ku socda oo miisaan culus uusan lahayn marka loo fiiriyo marka dhalinyarada ay cuslaato oo da-du kororto jacaylka qofka ku dhaca. tusaale kale wuxuu yidhi jacaylku wuxuu bilowdaa marka 60 la dhaafo 70 la galo, meelahaasuu jacaylka uu ugu fiican yahay. marka maxaa ku dari lahayd? waxaan ku dari lahaa waxaad qabtaa anigii isaga inaan taliyaha meelo iskaga maaragtay iskaga imaanayno ama aan iska leenahay fikirka iyo afkaarta jacaylka. aniga matalan haddii aan iska soo qaado waxaan ahay qof dumar ah, noloshana waxaan u jeclahay inaan nolosheyda inta aan noolahay oo ii hartay aan ku noolaado jacayl, inaan la noolaado qof i jecel, inaan guursado nin i jecel, inaan nolosha la wadaago jacaylka iyo qiimihiisa inta aan maaragtay adduunyada ku noolahay. dhalinyaronimadu way leedahay jacayl, asalkana saasuga ku bilaabanaya jacaylka dadka bini aadamka ilaahay isugu abuuray. hase yeeshee markaad sii weynaato wuxuu leeyahay shiiqsi macaan oo ka duwan markaad dhalinyarada tahay. waxaa laga yaabaa dhalinyaronimada inaada waayo aragnimo badan iyo afkaar badan aadan nolosha ka haysanin, laakiin marka adiga oo weyn aada jacayl uu ku galo sida aniga oo kale hadeertaan aan kula hadlayo, aniga caashiq baan ahay oo caashiq waa i galay. waa kasii dhadhan iyo qoto dheer yahay marka aada dhalinyarada tahay. waxaad qiimeyneysaa tallaabo kasta oo jacaylkaas aada u qaado, waxaad qiimeyneysaa tallaabo kasta oo jacaylkaas dhinaciisa kaaga timaada, waxaad qiimeyneysaa qofka ahmiyadiisa iyo miisaanka uu noloshaada ku leeyahay. marka waxaan aaminsanahay inay waay aragnimadu ku kordhinayso jacaylka macaan dheeraada. waxaad ka warantaa markaa Batuulo marka uu qofka waxaa la yidhaahdaa haddii qofka aad in lagu jeclaado iyo inaad wax jeclaato, waxaa inta badan fiican ay dadku yidhaahdaan in adiga lagu jeclaado oo markaas waxaad dareemaysaa waxoogaa yara moogta qab. marka xilligaas aad ku jirta hadda waxaad sheegtay in jacaylku hayo ama aad mucaashaqo tahay, waxaana filayaa kolleyba dhinaca kalena inuu ay sidaasoo kale tahay. marka maxaa ku sifayn kartaa jacaylka xilligan aad ku jirto? runtii waxaan ku sifeynayaa inuu yahay hadiyad min allah, gifti ilaahay subxaana watacaala uu siiyey. waxaan ku sifayn karaa in ay maaragtay habboon tahay xilli aan dadka ugu muuqan karo ama dhaqan ahaan inaan marka waayeel noqday, aan aniga qalbi ahaan aan u tirsanayo inaan ahay qof maaragtay waayeel ah oo ilaahay uu ka dhigay, laakiin haddana niyadaydii waxay keenaysaa maaragtay xiiso, waxay keenaysaa kalgacal, waxay keenaysaa jacayl, waxay keenaysaa hal abuur, waxay keenaysaa dhaqan wanaagsan. waxaan aada ugu jeclahay inta aniga adduunka ii hartay noloshaydana inaan jacaylkaygaan ku waaro oo aan la qaato ilaahay hadduu raalli ka noqdo. waan kugu duceynayaa, aamiin aamiin, allah ku aqbalo. marka waxaad ka warantaa jacaylkaasi ma qof aad isku jiil tihiinba mise jiil ahaan waa qof aad macnaha uu jiro kala duwanaansho xagga da-da oo idiin dhexaysa adiga iyo qofka? waxaa noo dhexeeya farqi aada iyo aada u weyn baa noo dhexeeya. da ahaan aniga ayaa weyn, laakiin qalbi ahaan aniga ayaa ka yar, sababtoo ah aniga ayaa jecel, aniga ayaa mataqaanaa u ogolaaday inaan nolosha la wadaago isagoo iga yar, sababtoo ah waxaan arkay mas-uuliyadiisa, waxaan arkay akhlaaqdiisa, waxaan arkay dhinaciisa rabitaankiisa, waxaan arkay qiimaha aan u leeyahay. yididiilo weyn ayay marka taasi ugu abuurtay, waxayna soo gaartay inaan u xisho inaan ka dhigto odadeeda.